haddii aad tahay qof ay timaha u bixi waayeen ama ay ka daataan ama ay ka jajabaan ama ay ka siibmaan, intaas haddii aad tahay fiidiyogan bilow ilaa iyo dhammaad daawo, waad ka heli doontaa insha Allah. alaabtaani waa alaab nafaqo ah oo dhammaystiran oo timaha wax badan u taraayo, jajabka iyo siibka intaba kaa deyn doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qaaliga ah, soo dhawaada meel walba aad joogtiin. asxaabay janalku waa qurux dumar official. kusoo dhawow haddaad igu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo saarto, like sidoo kaleeto commentigu waa fikradaada, siina share garay haddii aad videoga aad ka hesho. asxaabta qaaliga ah, aad iyo u mahadsantihiin. sidaa ka aragtaanba maxaan dhahay, maxaa idin wadaa maanta ama cawada. maanta afkiga iska bartaraa lahaada. maxaa idin wadaa halkan waxaa uga jeedaan malinaa 2 xabo oo kuna. okay, cawada waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo inaa alaab yar oo maxaan dhahay oo timaha u fiican, oo timaha kuu bixinayso, jajabka siibka waxaas dhan kaa baabi'inayso, jajabka kaa deynaysaa. hadduu oo tinta ay ku siibanto sidoo kaleeto way kaa ilaalinayso, kaama siibmayso, tintana way kuu bixinaysaa. waa nafaqo yar insha Allah. in aad maxaa dhahay ila daawato oo macnaha aad daawato videoga bilow ilaa dhammaad ayaan rajeynayaa, iyo sidaan isugu soo dadaraayo haddii ilaahay idmo. marka insha Allah halkan waxaa noo yaalo 2 xabo oo ukuna. waxyar waan soo wareejinayaa. 2 xabo oo ukuna ayaa noo taalo haddii ilaahay idmo. ukuntii ayaan maxaa la dhahay soo jibinayaa. waa 2 xabo oo ukune. okay, maxaa kaloon haystaa haddii ilaah yidhaahdo xabad moosa. xabada mooska waan soo jarjarayaa haddii ilaahay idmo insha Allah. waxaan kusoo daraayo asla daawanayna haddii ilaahay idmo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatiin insha Allah. asxaabta qaaliga ah, adiga daarta mooska waa badsan kartaa, haddaa doonta waa yareysan kartaa. soo raali ka ahaada yaa qacqacda ka raali noqda. adiga tintaad intay la eg tahay ayay ku xiran tahay. ukunta haddaa tintaada yar tahay oo dadku way kala timan badan yihiin soomaha, waa yareyn kartaa, waa iska yareyn kartaa. 1 xabaa ka dhigan kartaa calaashan. meesha aniga 2 xabo aan ka dhigay, 1 xabo ayaa ka dhigan kartaa. kadib maxaan kusoo darayaa haddii ilaah yiraahdo yogurt ayaan kusoo darayaa insha Allah. okay, kani waa yogurtkii. meeshaan nafaqa isugu imaanayso asxaabta qaaliga ah. waxaan kusoo darayaa malab, qaadi xoogaa ayaan kusoo daray. waxaan kaloo kusoo darayaa haddii ilaahay idmo saliid noocaa haysato adiga ayay ku xiran tahay. 2 qaado ayaan ku daray. okay, meeshaan nafaqa isugu imaatay asxaabta qaaliga ah. nafaqa dhashay ma maqasheen ayaa iskugu timid. marka asxaabta qaaliga ah waa isku soo noqonaynaa haddii ilaah yiraahdo. waan soo shiidayaa soonso videoga u dheeraanin. asxaabta qaaliga ah, sidaan ayay kusoo baxday. sidaan aad aragtaan oo kareemka ah oo quruxda badan ayay kusoo baxday markii aan soo shiiday. alaabihii aan isku daraayane waad arkayseen. alaabtan maxaa la dhahay inta ay ka koobnaayeen. alaabtan waxay ka koobnaayeen maxaa la dhahay wax kalena gadaal ugu soo dari doonaa insha Allah.
marka intay ka koobnaayeen waa idin sheegi doonaa maadaama markaan soo dhammaystiro. marka asxaabta qaaliga ah ee aan jeclahay, alaabtan waa kareem aad gurigaaga ku suubsan karto oo maxaa dhahaye timaha kuu bixinayso, kuu dheereynayso. jajabka iyo siisiibka ayuu u fiican yahay, asagana way kaa reebaysaa tintaadana tin qurux badan ayay kaaga dhigaysaa haddii ilaahay idmo. sitimaankii hal mar ayaa marsanay haddii ilaahay yidhaahdo insha allah. marka alaabtan waa ka faa'iidi doontiin. tinta markii oo maxaa la dhahaye aada mariso kadib maxaa la dhahaye shaambo oo fiican ay isaga dhaq. macnaha shaambooyinka qaar timaha ayay jaraan. marka alaabtan waxay siinaysaa tintaada waxay kuu siinay nafaqo ayay kuu siinaysaa. waxay kaa caawinaysaa marka timaha inaysan jajabin, inaysan kaasii siibmin, inaysan maxaa la dhahaye inay kuu baxdo. intaas ay kaa caawinaysaa. waana alaab yar oo guriga ku taalo oo aad heli kartid mar walbo. marka istimaankii hal marna wax ma dhibayso. qof weynaa marsan karo, qof yaraa marsan karo. qofka weyn kaliya looguma talagelin. qof yar, ilmaha yarka ah xataa waa loo marin karaa. alaabtan waa nafaqo. marka ukunaa ku jirto, waa aragteen waa moos, waxaas oo dhan waa fitamiin. marka maxaan kusoo darsanaynaa intaan wararka badan sii gelin, wax yar oo caano ah ayaan kusoo daray oo aan badnayn. horena yoogada ugu jiray. alaabtan marka aad rabtid inaad tintaada marisid, waxaa soobinee tinta marka hore waa soo dhaqe, waa nadiifine. markaa tintaada nadiif ay noqoto, laba qayb ka dhig. dadku bini-aadankuna way kala timo badan yihiin. dadna way timo badan yihiin, dadna way timo yar yihiin. timo badnaashadu maku xirna dheer ay gaabnaan. calaashaan qof waxaa arkaya timihiisu yar yahay oo 5 xabo ah oo haddana timihiisu dheer yahay, iyo qof timihiisu badan yahay laakiin aan dheereen. marka dadku isku dhex jiraan, ninba waa nooc. marka adiga haddii tintaadu badan tahay 2 xabo ukun iyo intaa haddaa isku darsato okay waaye. 1 xabana waa ka dhigan kartaa, laakiin tintaada hadday yar tahay 1 xabaaba kugu filanba. taatanba sideedaba tintaada hadday yar tahay 1 xab ayaa kugu filan oo ukunahan ka wada, iyo 1 xab oo moose ayaa kugu filan, iyo yoogadka intaa isku soo darsanay. laakiin tintaada hadday badan tahay 2 xabo ukunta ka dhig, sida hadeer aan 2 xabo uga dhigay. okay, waana loo mari karaa gabdhaha yaryarka ah, waa loo marin karaa 2 sano wixii ka xageeyo. mar walba alaabta nafaqo waa qofku waxay u dhibayso ma bajirtabo. 2 sano ka yar ibana waxba loo marinaynin, laakiin wixii ka weyn 2 sano ka weyn waa loo marin karaa. okay, alaabtan marka nafaqo saa idin sheeg waa nafaqo madaxa ama macnaha tinta loogu talagalay. marka tintaada marisid sorry, madax xogaa yar ku masaajeynaysaa. waxaa la rabaa inay tinta lafta ay gaarto. lafta inay gaarto la rabaa. nafaqadu lafta inay ka qaadato la rabaa, tinta kaliya maahan. muhiimadu lafta inay gaarto ayaa muhiim ah. waxay haddaad kor ka marmariso tintii kaliya aad mariso wax faa'iido leh ma ahan. muhiimadu waxay tahay in aad lafta gaarsiisid. say lafta u gaarsiinaysaa, tintaada waa kala qaybinay. haddii tintaada tin yar ay tahay 2 qaybaa ka dhigay. 2 qayb markaa ka dhigto qayba maraa marinaysaa. markaa mariso laftaad gaarsiinay, taasi xaq ku dhamaatay. haddii tintaadu ay badan tahayna waxaa soobinay 4 qaybaa ka dhigay. 4 qayb markaa ka dhigto qayba u marinay ilaa lafta ay ka gaarto. laftaa gaarsiinay, muhiimadu waa lafta inaa gaarsiis. marka intii daqiiqadood adiga 10 daqiiqo waa okay, laakiin haddii aad ka badsan kartidna waa iska iyadana waa okay, laakiin ugu badnaan ilaa 10 daqiiqo 20 daqiiqo waa okay kugu tahay. marka asxaabta qaaliga ah, muhiimadu marka waa intaas, inay laftu ay gaarto. waxaa kale oo muhiim ah qofka inuu macnaha afka uu ka qaato nafaqo, inuu ka qaatana muhiim waaye. sababtoo ah tintu waxay ku xiran tahay nafaqada qofka jirka uu ka qaato ayay ku xiran tahay. markii jirkaaga uu nafaqo leeyahay, tintaada wixii aad mariso way maxaa dhahay way kasoo baxay, way ku naasibay. midda labaad, hal maraa marsaday waxna ma ii tarin, macquul ma ahan. waa inaad sitimaankii hal mar marsataa. marka
ساسا بلانتين وتهاي دي إلهي يراهدو مركب محا اسكو صودا دري هدي إلهي إدمو عادين شيء وانت اسكو صودا دري إن هورينا فيديو قبلو ويسا واتكا عرقتين وحا اسكو صودا دري إن وحا اسكو صودا دري marka waxa isku daray nafaqadan ay ka kooban tahay kulli video hadii bilowgiisa aad soo daawatay ayaad ku ogaan doontaa ama aad ku soo aragtayba sheegid uma baahna kulli ma u maleynaa videoga qofka soo bilow soo daawan inuu gadaal imaanayo laakiin waa laba xabo oo kuna xabad moosa maxaa dhahay malab saliid caano oo gadaal uga soo daray intaas waay marka intaasna waxay u fiican tahay tinta ay aad ugu fiican tahay nafaqa ayay siisaa marka asxaabta qaaliga ah waxaa rajeynayaa alaabtan haddii tintaada aad marisid maxaa la dhahay laba maalin macnaha weekii hal mar le hadda aad ka marsato waqtiga aad jaaniska leedahay alaabtan waa ka faa'iiday haddii aad wadid dhowr beri ama dhowr toddobaad calaashan waa ka faa'iidaysa waa kareem aan caadi ahayn marka alaabtan soo tijaabo waba ka dhan yahay laakiin tijaabi ilin adoo kugu cusub yahay qofka uu ku cusub yahay qofka uu ku cusbeen dubuub yaqaanaaba waxtarka uu leeyahay marka anigu waan soo tijaabiyey waan arkay adigana ila baroobay oo ila tijaabi arag waxa uu macnaha faa'iido u leeyahay alaabtan iyada soo dhow hada faa'iidaysto ya caruurta ilmo gabdhaha yar kooroonka ah uu fiican yahay adoo fiican yahay tintaada inaan faqaysiib hadda caruurta waxaaba ka daran dadka waaweyn waa waxa badan timaha ay ka daataan ilmuhu hadda way korayaan adoo ilmo yar waa mugta aad u yar laakiin dadka waaweyn tinta badan way ka daadataa oo maxaa dhahay tinta wayna ka jajabtaa waxaasna waxa keenaya waa nafaqa daro tinta hadii ku bixi weysana sidoo kaleeto marka insha Allah waxaan rajeynayaa in videogan aad ka faa'iidi doonto hadii Ilaahay yiraahdo markuu ku soo gaaro insha Allah hadii aad ka faa'iididna oo aad macnaha ka heshidna waxaan ka codsanayaa inaad subscribe asaarto like sidoo kaleeto insha Allah siina share gareyso si ay uga faa'iideystaan asxaabta kale ay uga faa'iideystaan marka insha Allah asxaabta qaaliga ah waxaan idinkaga tagayaa hadii Ilaahay yiraahdo salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh